aad baan idin salaamayaa marka hore. Waxaan ku faraxsanahay runtii inaan arko wiilal yar oo dhalinyaro ah. Waa kuwan bogaadinayay, waa kuwan dhiirigelinayay, waa kuwii runtii igu khasbay in aan sameeyo barnaamijkii ahaa shaqayso ha shaxaadine. Waxaad garanaysaan dhalinyaradeennu waxay waayeen oo ay ku waayeen shaqo oo ay xafiisyo ku waayeen, madax ku noqon waayeen, qalinkii ay soo barteen, qalinkii waalidku xoogga geliyay, qalinkii waqti la geliyay, qalinkii lacagta la geliyay, qalinkii cimrigoodii qaatay markay dhameeyeen wax waa ku heli waayeen. waxaana ka horeeyay runtii qalinka waxaa ka horeeyay xoogga ka horeeyay, muruqa ka horeeyay, muruqa ayaa ka horeeyay. diinteenana qalinka iyo xoogga muruqa waxaa asal ah xoogga asal ah. waad garanaysaan waqtigii qalinka lagu dejiyay rasuulka inuu wax ku qabto sallallahu alayhi wasallam. waqtigii iqra la soo dejiyay waad garanaysaan 40 sano jiray sallallahu alayhi wasallam. maxaa ka horeeyay? xoogga ka horeeyay. 8 sano jiray markii intuu marada xidhay isagoo agoon ah dowladka magaalada Maka uu ku raacayay ari. 12 sano jiray markii ganacsi Busra iyo Shaam uu u aadayay ganacsi. wuu xoog buu lahaa, dhalinyarada xoog bay ku shaqaysan jireen. 40 sano ka hor wixii lagu dhisay Kacbada dhagaxa madow lagu saaray xoog buu ahaa. waxa dalka lagu difaacayay xoog buu ahaa, qalin ma ahayn. soo qalinka waa gadalka gaar, waxa asal ah waa xoogga. rasuulkana wuu ammaanay sallallahu alayhi wasallam shaqada xalaasha ah markii la yiri ayul kasbi afdal, kasab wax la qabsadaa maxaa ugu fadli badan? muxuu yiri amalu rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabruur. qofka gacantiisa wuxuu ku kasbada ayaa fadli badan. wax la cuni wax la quuto waxa u fadli badan qofka waxa gacantiisa uu ku kasbado. ma aha qalinka, ma aha qalin waa laga horeeyay. inaad geedaha jibisid, dhagxaanta qodatid, beeraha fashid, malayla soo baxdid, biraha tumatid, kabaha tooshid waa shaqooyinka ugu fadliga badan. iyadaa asala ummadii horena iyagay ku baraareen, iyagay ku guuleysteen, iyadaasay ku hormareen. laakiin markii gacantii la daayay qof walba qalin iyo taay iyo xafiis uu aaday, barakadii ilaahay waa qaaday. barakada waxay ku jirtaa waa gacmahay ku jirtaa. maanta waxaan idin cadaynayaa gacantaada i tus, gacantaada i tus. ilaahay baan ku dhaariyay gacantan eega, gacantan way adkaatay. maxaa adkeeyay? waxa adkeeyay waa shaqada ay qabanayso. kulli saasi gacmahooda u wada adag yihiin, gacmahooda jilif ayay leeyihiin. eega dhalinyarada ilaahay baan ku dhaariyay gacanta aad arkaysaan idil way kala daran yihiin, waliba way dhiigaysaa gacantan. rasuulka ayaa sallallahu alayhi wasallam wuxuu salaamay Abdullah ibn Mas'ud buu salaamay. Abdullah caamil buu ahaa, gacantiisu ku shaqaysanayay. ima inuu beer falo, ima inuu dhagax jabiyo, ima in uu maaragtay qodo, gacantiisu ku shaqaysanay. markuu sidan u salaamay ayuu wuxuu la yaabay gacantiisa siday u adag tahay. markaasuu fiiriyay, wuu u bishaareeyay runtii sida aan maanta ugu bishaaraynayo walaalaheen. wuxuu yiri inna hadhihi al-yad yuhibbuha Allah wa rasuluhu. gacantan ku adkaatay shaqada ay qabanayso ilaahay iyo rasuulkiisa aad bay u jecel yihiin. Allahu akbar.